السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يوالكين مهدي ميعاد ولي waxaan ku guda jirnaa waxa weeyaan welina dhexda ugu jirnaa waxa weeye waa barashadii HTML iyo CSS casharkan waa casharkii afraad haddii ay intii hore hadday ku dhaafaan mahdimiicad.com website-kood ku noqon kartaa ama YouTube iyo Facebook labadaba way yaalaan casharkan aan wadno barashada HTML iyo CSS-ka ujeedadu waxay tahay maanta web development oo career aad iyo aad u wanaagsan oo qof shaqo iyo uu ku heli karayo waliba maanta iyadoo online lagu shaqayn karayo adigoo wadankaaga ama adigoo xafladaas ka jooga waa shaqooyinka ugu waaweyn ee maanta remote lagu shaqeeyo marka saadaradeed HTML iyo CSS waxa weeyaan waa albaabkii ugu horeysay ee laga gelayay barashada website development marka casharkii hore saan ku sheegay waxaan u qaybinay website kan dhisaynay website portfolio-ga ahaa section aan u qaybinay logo menu hero section intaas oo dhan waan qaybinay marka markii hore wanagi soo qaadanay logo-ga iyo menu-ga maanta waxaan geli doonaa waa qaybta hero section qaybtaayoo qayb wax badan ay ku jiraan sidii mar horeba aan kugu soo sheegayna anigu oo tutorialka ama barashadan HTML-ka intii aan qaban lahayn xabad kugu macnayn lahaa anigu waxaan isiri malaha waxa wanaagsan iyada oo example lagu tuso marka example-kan aan wadnaana waa example website portfolio waa qof website-kiisa markaa raba kusoo bandhigaya aqoontuu lahaa iyo wuxuu rabo inuu ku shaqeeyo markastana dadka waxaan ku iraahdaa waxa weeyaan markan aad daawanaysid full screen ka dhig YouTube-ka ama meeshaad ka daawanaysid si aad casharada gudahooga aad u aragtid kan isticmaalayana website maxay programming-kan aan ku qorayana bracket baa la yiraahdaa adigu laakiin waxaad YouTube baad isticmaali kartaa casharadii ugu horeysay oo ku soo sheegay xitaa sidaan aan bracket-ka aan u isticmaalo ama loo telecharge ama loo download garanay marka imika aan tagno hadii la yiraahdo laptop-ka ana ku tuso qaybta kale sidii aan u sii wado waad mahadsantahay markii hore waxaan ku joogsanay halkan markii aan introduction ka hadlay waxaan yiri waxaan sameeynaa hero section waan ku khaldamay waayo hero section markii hore waan dhamaynay imika qaybta kale aan sameeynaay waa qaybta my work ayaan imika sameyn doonaa haddii ay imika kugu horeyso video-gana waxaan soo sameynay waxaan ku tala jirnaa inaan sameyno website-kan waxaan ku design garay waa Adobe XD baa la yiraahdaa Adobe XD wuxuu ku fiican yahay marka u horeysa kolba sawir baad sameyn waxaan kaaga jeedaa yacni website-kaaga design-kiisii markaad xabad aad u sawirtid ayaad hadhow toole aad u bedeli doontaa website shaqeynaya laakiin website-kan ku tala jirnaa waxa weeyaan waa website-kan marka logo-ga iyo menu-ga iyo qaybtan hero section aan u bixinay videoyadii hore ayaan ka soo hadalnay videoyada horena saan ku sheegay website-ka mahdimiicad.com waa laga heli karayaa iyo haddii aad YouTube-ka haddaad tagtidba labadaba waad ka heli karaysaa si website ahaan waxay ugu jiraan mahdimiicad waxay ugu jiraan waa isaga oo iyagoo isku daba xigaan marka haddaba iminka qaybtan kale haan galno qaybtaa kale weyn waxaan samaynano badanaa kelmadahan aan isticmaalay waad wala aragtay oo imaka sidii marka hore kuu soo sheegay marka la sameynayo qayb kastaba magac bay iska leedahay marka imaka waxaan u bixinaa qaybtan div classkeeda waxaan leeyahay magaceeda waxaa la yiraahdaa my work kaba soo qaad my work halka ayaan gelin doonaa qaybtan my work haddaba imaka magacii baan sameeyay laakiin CSS-kiisana aan sameeyo waxaan leeyahay kelmadan my work waxaan sameeyay dots baa leedahay kadibna my work haddaan idhaahdo waxaan si aan mar horeba kuu soo tusay marka la raba inaad centerka laga dhigo 0 iyo auto samee kadibna waxaad tidhaahdaa widthkiisu waa 100% waayo screen-ka idil waa 100% laakiin qaybtan aan isticmaalayahay waa 100% mid kalena waan ku tusi si aan ku tuso bal
waxaan aan sameynayo ayaan background uga diray, laakiin hadhow tolo waan ka qaadi doonaa. haddii imika refresh aan sameeyo eeg hide bayna lahayn, laakiin hide-na haan u sameeyo. hide-kiisa waxaad rakaaba soo qaadi waa 400 pixel. intaa waan ka baabiin doonaa, laakiin waxaan kuu tusay waxa weeyaan si aad u aragtid. waa ka qaybtan aan gelin doono waa halka. marka hide-kan iyo color-kan waxaan ugu sameynayaa waa si aan kuu tusee, laakiin waan ka baabiinaya hide-ka. waxaan sameyn doonaa halkan baan ku qori doonaa, aan odhan doonaa my aniga nimaka halkan waxaa ii qoran waa kelmadda my work soo ma. halkan baan iman my workan dhexdiisan ayaan h1 kan waan soo macneeyey, waa kelmadaha waaweyn my work. imaka haddii halkaan refresh imaka haddaan sameeyo waa my work halkaas soo galaysa. haddana my workan saas ilaa lafteeda iyada idil baan rabaa inaan center ka dhige dot my work h1 baan leh. h1 stylekeedu waxay noqon doontaa sida taa hore, margin 0 iyo auto. intaa keliya haddaan ku daayo maxay iman doontaa margin 0 with text align center, weliba ii dheh text align center. waxaan weliba kale ku daray haddaan doono inaan capital inaan magic ama caps inaan ka dhigan rabaa. markaan maxaan ku dari text, waxaa jira transform upper case oo ka dhigan h1 kan waxaad iga dhigtaa upper case. font familkiisana waxaad iga dhigtaa nonito, kii markii hore baan soo isticmaalanay to. imaka haddii aan refresh sameeyo waa ka halkaasuu isoo galay maad arkaysaa. haddana waxaan kalen sameeyey raali noqo ku dheh, haddana waxaan kalen sameeyey line-kaa yaree hoose maad arkaysaa. line-kaa yaree hoosena maxaan sameyn, isagana magaciisa waxaan u bixiyey divider baan idhi. eeg haddaba divider haddaan idhahdo keligiis ka sameeyo wuxuu iga rabay inaan waxaa odhan kusoo qoro. marka maxaan sameyn, waxaan odhan my work dividerka ku dhex jira waxaad ka dhigtaa bay ka dhigantay markasaa. kadib halkan baan gelin doonaa oon odhan div class divider. magacaantan anaa iska sameyn divider separator waa magacaan anu aan iska sameynayn, laakiin muhiimaddu waxa weeyaan magacaad halkaa ku samaysay uun stylekiisa inaad samaysay. marka magaca halkaan ku sameeyna maxaan ka dhigi doonaa, waxaan odhan borderkiisa waxaad ka dhigtaa 1 pixel. weliba way kala duwan tahay border ku yee dashid baa jira, laakiin dashid ma isticmaalayo. waxaan rabaa inaan solid isticmaalo. solid colorkiisana waxaan ka dhigi waa colorkan idil aan sameynayey website-ka aan maantoleyl aan ku waday oo ahaa 7f kii aaway waa kan 7f. markaan sidaa yidhi kadib imika wuxuu itusi doonaa waxaad odhan widthkiisa waxaan odhan waxaad ballaarhkiisa gartaa ilaa 300 oo pixel ballaarhkiisa bal ka dhig balahaan eega imika suu idhaahdo. okay halkaas u tegay soo maha maafi mushkila, sidii kaygii horeba waan soo qaban oo marginkiisa waxaan ka dhigay dusha iyo hoosta waxaad ka dhigtaa 0, left iyo rightna waxaad ka dhigtaa auto. intaa kaliyata ayaa center ii keenaysa. okay haddaba isagaan ka yar durkin markaa maxaan sameyn, waxaan ku biirinay wixii ahaa marginadu way kala fara badnaan, laakiin margin top baan leeyahay. topka waxaad ka soo goysaa 30 pixel. refresh waa kaa 30 pixel buu ka soo galay. sax soo maha. haddana maxaa kaliya ku xigay intaa imageadan baa ku xigay soo maha. intaa markaa samey imageka waan iman, haddana meeshii baan kusoo noqon. haddana waxaan imankaan odhanayaa la soco my work select oo emg oo ka dhigan imagekiisa. marka maxay kula duwan tahay, marna inaad dodka raacinaysid marna inaan dodka raacinayn.
tani waa element ay html tos ka leedahay imaka emg iyo h1 iyo span iyo waxyaabahan kelmadaas ka leedahay laakiin wixii adigu aad samaysanaysid dot baad ku horeysiinaysaa class baad ka dhiganaysaa marka image aan dhigi doono horta laakiin waxaan samayn halkan baan iman waxaan odhan emg src image hal image baan horta samayn bahalahaana waxaan dhiga bay ahayd desktop tutorial html css my first okay haddaba waxaan samaynay imageyaasha horta imaka aan soo qaadan imageyadana waxaan dhigay bay ahayd halkan baan dhigay markaa waxaan ka dhigay logo 1 waa kan website-kayga dhexdiisan website-kii aan sameeyey imaka baalkan aan wado waa html index.html image-ka folderku garab yaalaa marka maxaan samayn source-giisa waxaan image-yada waxay yaalaan meeshan halkan image-ku haddana maxay logo 1.png waan ku tusi logo markaan sii dhex galo waa ka logoda halkaas yaalaan logo 1 logo 3 imaka haddaba saadaas refresh marka haddaan sameeyo waa ka logo halkaas ii soo galaya maad arkaysaa okay haddaba waxaan samayn image-yadan halkan waan qaban oo copy paste 3 image baa meesha ii yaalay image 1 image 2 iyo image 3 saddexdii image waan isgarab dhigay refresh samee saasay isu garab yaalaan laakiin saa inay isu garab yaalaan maaha way yaro kala durkisan yihiin halkan oo kasoo durkisan soo maaha marka taana maxaan samayn image-kaygii design-ka halkan ahaa ayaan oran image o horta width-ka waxaad iiga dhigi 325 soo maha saasay ahayd waayo image-ka waxaa dhici karta inuu weyn yahay imakaygan waan hubaa laakiin haddana waan sii gelinayaa si hadhow toole ay wax dhib ah ii keen haygiisa waan hubaa taana waan soo sameeyey laakiin haddana waan sii gashanayaa oo ka dhigan marka haddaan taa ku biirin waayo image-ku hadduu weyn yahay meesha idil buu iga kharib laakiin had iyo jeer waxaa wanaagsan image-yaashaada inaad soo hagaajiso okay padding baa jira paddingka waan soo macnaynay waa kala durkitaanka marka imika sidaa 10 pixel haddaan idhaahdo waxay ka dhigan tahay paddingkii topka samee paddingkii bottomka samee imika tilmaada markaan saa qoro waxay ka dhigan tahay waxay la mid tahay sanoo kale la mid tahay padding okay padding top waa ka padding top waxay ka topka waxaad ka dhigtaa 10 pixel hay haddana padding left baa jira haddana left waxaa ka durkisaa 10 pixel haddana waxaa kale jira padding right baa haddana jira soo maha padding right waa tii midigta 10 pixel haddana waxaa jirta padding bottom tii hoose 10 pixel ima kelmadda afarta aan qoray iyo kelmadda kiyaata isku mid haddana aan ku tuso waan save gariyay refresh waa ka saasay bahala igu weeri kala durkeen adiga arkaya haddaba separatorka ku yar dhawne separatorka hoostiisa aan ka soo ordurkiyo halkii separatorka aw dividerka ii tag waxaan ku biirin margin bottom bottomka waxaad ka dhigtaa 20 pixel ka soo yar hooseysii waa ka soo orgay saddexdii sawirna halkaas ay ku dhawin haddii marka inta hore wala qori lahaana waxaa iiga wanaagsan anoo iraahdo padding 10 pixel meel kasta waxaad ka dhigtaa ka durkisaa 10 pixel marka waa isku la mid tan xitaa inaan dusha ka soo durkana weeyaan laakiin wax dhiba ma jirto imaka waxaan aniga yimayn imaka waa kelmadii ugu yar yaraa waxaan isticmaalayaa laakiin haddii aan serious daan u sii galno kelmadu way fara badnaanayaan laakiin for testing purpose iyo learning purpose daraadeed ayaan kelmado yaryar aanu isticmaalayaa laakiin css intaa way ka badan tahay marka haddaba qaybta kale ayaan geli doonaa haddii la idhaa okay haddaba qaybtii hore waa nagan dhammaynay marka waxaan galanaa waa qaybtan kalena saad u arkaysid halkaa titlekii isku mid bay yihiin what service do you like halkana separatorkii intan kalena waa qayb waa boxyaal gooniya haddaba boxyaasha ayaan titleka intaan sameyno ayaan kadib haddana intan kale qaybtan box u sameynaa maxaan sameynaa haddaba halkan imo sidii caadiga ahayd div class
classkaana waxaan u sameynaynaa magaciisa waxaan leenahay services baa lacaynkaasaan u bixinaynaa. serviceskaabaan hadhow toola halkan serviceska haddana h1 sida kaa hore ayaan h1 intaan dhex dhigno ayaan titleka kanba soo qabay marka saa uu yahay mise what services do you like to get, saasoo mean you will get what services you will get from me. Okay, qofkii baa iska hadlayo saale. Okay, what services you will get from me, so mean. Okay, hadda imaka haddii aan imaadno halkan saan iraahdo wax haba yaraatee styling kuma jirto, laakiin sidii markii hore maxaan sameynaynaa halkan baan imanaynaa waxaan sameynaynaa bahalkan magaciisa services. serviceskaas uu noogu yimaado centerka maxaa nidhi ahayd margin dusha sare iyo hoosta, inta kalena auto dhe. kadib markaad sidaa tiraad services widthkiisana waxaad leedahay 57%. waxaad kaloo leedahay haddana haddii ilaa idhaahdo family fontigana waa nunito, sidaa ma yidhi. okay, haddaba halkan say refresh waa ka halkaasuu yimiday, laakiin h1 kana imika way ka maqan tahay. h1 kana sidii markii hore waxaan sameyn services h1 kiisa waxaad ka dhigtaa baan leeyahay text align horta center konta iiga dhig, centerka iige. haddaan imaka centerka idhaahdo bal wuxuu noqon doona waa kaas noqon doona, laakiin halkan waa small case, anna waxaan rabaa upper case inay wala noqdaan. taana maxaa la odhanayay waxaa la odhanayay text transformation sama transform kadibna capitalize sama upper case upper case markaan idhaahdo haddana waxaan odhan doonaa margin xagga sare waxaad kasoo yaro durkisaa margin top, waxaad tirahdaa waa 50 pixel badhe haddaad doontid. margin top waxaad odhan waa ilaa iyo 50 pixel bay ku daa 550 waa 50 kaliyata. refresh waa ka halka. haddana waxaa kale hadhay haddana dividerkii c select intaa kale waxay iska mid yihiin waa ninkii services dot divider kii kale isku mid yihiin waayo h1 kadibna sidaa halka ka aanu sameeyey ayaan rabaa calaamadda ayra dhexda inay saas leegina inay gasho. marka maxaan sameyn div class divider ayaan odhan dividerkaabaan haddana aan stylekeeda sameyn. dividerkana muxuu noqon doonaa border 1 pixel ka dhig solid, colorkiisana wuxuu ahaa colorkan waa kan colorkan idil ee website-kayga sidan ahaa. haddaan imika staa idhaahdo refresh waa ka meesha wala gaaraya soo maa, laakiin intaa o dhan ma rabee waxaan rabaa widthkiisu inuu 300 pixel noqdo. center si ugu yimaadana sidii aan kuu sheegay markii hore margin auto. markaan sidaa idhaahdo hoostana waxaan ka yar durkinayay margin button ilaa iyo 30 pixel badhe. markaan refresh idhaahdo waa ka oo laakiin haddana waxaa iga maqan windows baan idhahdaa width weeyaan. marka width ballarkiisa okay imaka kani kaa kale isku mid yihiin, laakiin haddaan doono kan kaa leekaysiin, laakiin designkaagu si isku la mid noqdo dividerku has leekaado. casharku haba iska weynaadee laakiin dividerku has leekaado. haddana waxaan kaliya ku xiga dividerka intan kale ee goonidaa soo maa. taana maxaan sameyn tana container oo kaleanu bixin containerkaa baan ku dhex guri doonaa idna saas leeg. okay, markay sidaa tahay ayaa serviceka dhexdiisii ayaan halkan iman div class waxaan u bixin magaceeda service container badhe. service container markaan idhaahdo
ayaan service containerkan ayaan designkiisii marka stylekiisii marka samayn. Service containerkay designkiisu wuxuu ii noqonayaa waxa weeyaan waxaad tiraahdaa border 1 pixel solid, kadibna colorkii colorkan aan soo qaado waa colorkan. may colorka ama colorkan imika waxaan rabaa inuu nooc min gray oo kale inuu ii noqdo. graygana halkan buu ahaa, kaasoo kale graygiisa weeyaan. haddaba grayga markuu ii noqonayo waxa ay isiin doontaa design yaro. okay, ilaa hadda ma arkayo laakiin waxaan samayn waxaan ka dhigi width baan horta u samayn. widthkiisa waxaan odhan baa 300 badhe. may waxaad tiraahdaa 325 25 pixel. waxaad odhan heightkiisa kaba soo qaad, waxaan odhan 400 oo pixel. 400 oo pixel markaan heightiisa ka dhigay auto na waad ka dhigi karaa. hadda saa waan odhan karaa auto haddii aan garanayn waxaan galaya inuu weyn yahay inuu yari auto baan ka dhigay. laakiin haddii aan garanayo waxa text aan gelin intuu leegyahay imakadan baan usii samaysan, wax dhib ah ma jirto. saasaan odhan, kadibna markaan sidaa idhaahdo balhaan eego imika siduu ii soo noqdo textdaa baan idhi waa ka saasoo kale ii noqonay. maad arkaysaa wadanada sex. okay, saa markuu ii noqdo highgiisu waa inta. maxay kale okay, hadhow toole dhowr xabood baan isdaba gelin doonaa. markaa ahaan xabaddan markay ugu horeysa waa inay bidixda marto, si hadhow toole mid kaste ee takli ku xigta iyadna ay bidixda usii marto. waxaa kaloo iyadna dhici karta haddii imika aan rabo hadhow toole so serviceka soo maaha, waxaan rabaa kaa un inaan 2 jeer iyo 3 jeer inaan isticmaalo. marka maxaan samayn, saasaan odhan 3 jeer baan ugu celin. contentiga dhexdun baa isbedelay. way isku dhegayaan. marka mar hadday isku dhegeen waa inaan kala saaro. markaas ayaan ku kala saari, halkan baan iman, waxaan odhan margin waxaad kala durkisaa, meel kasta waxaad kala durkisaa 10 pixel. 10kii pixel waa kala durkiyey. waa ka 3dii box sidaasay ay noqdeen. waxaa kaloo jira haddana markaan sidaa idhaahdo ayaan markantaa saa isku leekeysiiyey waan iska baabiin. xabad keliyatan contentiga ku wala shubi doonaa si aan hadhow toole yani aan u copyin karayo. marka halkani waxaa yar ima ku jirta waa image. marka maxaan samayn, waan halkan baan iman emg src oo source ka dhigan. sourceka imageku folderka image buu igu jiraa. kadibna baalka magaciisu waxa weeyaan waa web design. web designkaay waa meeshuu igu jiraa. let me go and say refresh. waa ka halkaasuu igala soo maha. haddaba koonaha ama ahina designkeenu dhexduu ku jiraa soo maha. marka haddaba maxaan samayn, kelmaddan serviceskan ayaan oran doonaa text align center oo ka dhigan wax kaste centerka ii dhexgeli. refresh centerku ii soo gal. laakiin haddana waa inuu dusha waa inuu kasoo dhaadhacaa. dusha kasoo dhaadhicitaankana maxaan odhan margin baan markaa odhan. waxaan odhan doonaa margin top soo maha. may hadhow waxaan odhan doonaa contentiga idil baa la qaatay inaan saarmay. saa odhan maayo. sidaa haddaan idhaahdo image keliya taanoo idhahdaa laga qaatay. okay, waxaan intaan keligiisa u samaynayo halkan waa image soo maha. waxaan samayn style kale oo imagekan ku saabsan. marka maxaan odhan image halkaana emg oo ka dhigan imageka. yani serviceska classka serviceka image ku dhex jira waxaad ku samaysaa margin top. xagga topka waxaad ka durkisaa kaba soo qaadi markaa 20 pixel badhe. halkan igo refresh samee. waa ka soo dhadhac madarkas ama haddana waxaan ku samayn haddana halkan imageka waxaa ku xigi doona haddana h1 mise h2 baan imanka rahda h2 oo ka dhigan halkaa imaka waxaa designkeyga waxaan ku aybiyay web design soo maha. designkanaan adobe xd da ku sameeyey. marka maxaan samayn web design baan ku qori. let me go refresh. okay, web design halkaasuu soo galay.
haddana waxaa iigu xiga contenti kale oo tintan waa paragraph waan soo koobiya waxa waa test kaba soo qaadima haddana imika paragraph baan haddana imika p baan dhex dhigi p-da baan odhan okay contentigai p-da let me go refresh sameeyo okay haddaba gidaarkii bay gaadhay laabta mad arkaysaa marka paragraphkana waa inaan design isna u sameeyaa waxaan haddana samayn okay service containerkan okay dotka iloobin calaamada dad wax kasta kuma soconayaan p-diisa waxaad ii samaysaa horta text align waxaad iga dhigtaa left iga dhig waayo design kalka waxaan ku hayaa waa left inuu yahay dhexda ma ah left iga dhig waxaanad u kaadi horta saxan ku eega soo noqdo left ee gidaarkiiba ku dhigay ma arkaysaa gidaarkani inuu ku dhago maaha marka maxaan samayn meel kasta waxaad ka soo durkisaa paring waxaad ka sotaa 10 mise 20 mise 15 intaa doonti baa samee 15 pixel refresh uu ka soo yardurkay ma ka soo durkay haddana imika waxaa noo harsan inaan design garayno bottomka soo maa imika haddana waxaan samaynaa daawo waxaan samaynaynaa p-dan waan ka imide soo maa meeshii dhexdeedii baan haddana odhan div class btn baan odhan oonu soo gaabiyey bottom btn okay bottomkan waxaan ku qori read more okay haddaba btn kan imika stylekeeda aan sameeyo halkan baan iman btn ka waxaan ka doonaya waxa weeyaan horta waa background colorkiisa waxaad iga dhigtaa aw colorkayga yaraaye website-ku waa ka horta waxaad kalood ii samaysaa padding waxaad ka kala durkisaa meel kaste 10 pixel bal imika intaan eego refresh eegintaasu ii noqday aniguna taa ma rabo aniguna waxaan rabaa designkayga waxaan ku haystaa inuu sound lekaad soo maha marka maxaan samayn waxaan odhan colorkiisa horta waxaad iiga dhigtaa color ku dhex jira horta caddaan ka dhig f waxay dhanta waa caddaan waxaan kaloon samayn padding intaan qabto haddii aan sameeyo may waxa weeyaan margin intaan idhaahdo ayaan margin dush eg waa laba qiimo wuxuu qaadanaya waa halkaa pixel iyo halkan oo pixel halkan waxay ka dhigtaa waa dusha iyo hoosta 0 baan ka dhigay xoog uma baahan laakiin midigtiya bidixda 50 pixel bal ka soo durki waan eegi bal intuu leekaado waa ka midigtii iyo bidixda ayaan konto ka durki okay weli intaan ma rabo 100 ka dhig 100 kadibna refresh waa ka 100 markaan sameeyeyna intaa uu leekaado haddaba kuwa kale aan samaynaya saddexdan kale maxay ka dhigan tahay waa iyaguna isku mid ah oo copy and edit marka waxaan samayn services markaas halka service baan qabano waan copy halkan baan min paste baan ku oran haddana waan noqono paste baan laba jeer baan paste oran refresh waa ka labadii bisaabay noqdeen kadib marka maxaan bedelayaa waa qiimaha waa content-iga ma bedelayaa content-igana tani maxaa igu qoran UI UX design yaa igu qoran kiisa labaad UI UX design warka iigu jirna waxa weeyaan waa okaadi makasta aan idhaahday image kadibna UI UX design kan kale saddexaadna meesha maxaa igu qoran kana mobile app design yani waa qof raba inuu shaqooyinkiisii soo bandhigo uu yiraahdo waxaasoo dhan baan kuu qabanayaa halkana waxaad samayn emg kadibna mobile app sawiradani waxay ku jiraan waa image-ka bay ku jiraan folderkayga okay waxaan ku khaldamay daawo waxaan ku horeysiiyey calaamadda iyo calaamadda oo ka dhigan image-ka dushiisa adigaa arkaya marka maxay tahay content-igana de waad bedelin imakaanu content-igan aan ku wado waa content text test ya laakiin adigu sidii aad doontid ba yani kaba soo qaad
macluumaadka ama informationka wixii lagu qorayay baad ku qori oo ka dhigan content-gu sidaas u yahay. markaad saad u arkaysid qeybtaa iyo qeybtaa kale waan dhammaynay. cashirka noogu xigi doono wuxuu noqon doonaa haddii ilaahay idhaahdo inaan qeybtan kale ee ugu dambeeya sameyno iyo CSS-tan imanka aan halkan ku wala qornay maanta oo dhan. CSS-ta waxaa dhici karta in la hagaajin karo oo la qurxeyn karayo iyo inaa halkan lagu daayo mise in dibadda la geeyo weeyaan oo file kale la sameeyo. waxaasoo dhan waxaan arki doonaa cashir kale ee ku xiga haddii ilaahay idhaa. aad iyo aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullah.